عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتكم حنا جيرانك يا قلبي أوفيشال كسر واله موقال عصب وأنا كقال للضنه على ما حساسية مع صوكرني مع عصب مع مانتو إلى عدو قريان مع مانتو كعصب قارد يوروب waxyaabo badan baa jira oo aan barnaamijka maanta ku faaqidi doono aan kaga hadli doono hadduu ilaahay yiraahdo haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saaro waa free gambaleelka furo waa free video like garay share garay comment garay hadda hore nala joogtaan aad baan kaaga mahadcelinaa thank you very much meel kasta aad joogtaan walaalaha qadarinta iyo qiimaha mudan ku soo dhawaada channelka ayam qalbi official waxa barnaamijka idin wada waa royal family soo dhawaada dhamaantiin horta waxaan rabaa inta aan barnaamijka aan u guda galin in aan wax yar ka taabto oo aan ka sheego sida mataqaanaa idaacadaha iyo journalka iyo tviyada sida caalamka u howlgalaan haddii aad raadisaan dadka mataqaanaa adduunyada caanka ka ah ee fanaaniinta iyo basketballka iyo wax oo dhan example markaa idinka siiyo haddii ay lacala xaasiskoodu kala tagaan haddii oo mataqaanaa lagu qabto faar hadduu soo qabto wax walbo idaacadu waa ka hadlaan idaacadaha maraykanka haddaa aragtaan idaacado badan baa jira oo ka hadla Fox News kamida waxaa kamida GG TV kamida waxaa kamida LN TV News kamida way badan yihiin idaacadaha marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed maadaama baraha bulshada aanu nahay dad ku cusub cilmigoodana aan fahansaneyn dadku inay fahmaan qofku haddii qof popular ama qof caan ah haddii uu yahay in laga hadli karo sababtoo ah qofku markuu caan yahay ama popular yahay waa qof public ah dadka dhan u dhaxeeya noloshiisa waa looga hadli karaa social media sababtoo ah asaga ayaa doortay social media example aniga hadda shakhsiyadeeda social media anaa doortay YouTube anaa doortay haddii la iga hadlo haddii la igu caayo haddii la igu amaano dhamaantii waa soo dhaweynaa sababtoo ah meesha tan anaa doortay marka sidaa dadku ha u ogaadaan marka aad aragtaan aniga oo ka sheekeynaya waxyaaba qoysas ah burburay iyo anoo ka sheekeynaya ha u fahminina inaan burburka qoysaskaas walaalaha Soomaaliyeed inaan ku faraxsanahay kuma faraxsani laakiin maadaama oo dadka qoysaskaas yihiin qoysas umada taqaano inaan dadka u soo gudbino wixii cusubna waa news iyo mataqaana shaqadeena weeye waana wax aad iyo aad muhiim ah marka waxaan rabaa inaan idin sheego arinta King CK baan rabaa inaan galo waxyaabo badan ku soo cusboonaaday aniga CK ma nacbi waa wiil Soomaaliyeed oo walaalkay waxaan ku nac meesha ma taalo wiil waaba taageeraa aniga CK youtuberada aan taageero buu kamid yahay waa walaal Soomaaliyeed laakiin waxyaabaha faarka ah iyo wixii lagu arko oo soo kordho waa in soo qabtaa si asagoo shaqadiisa u tahay waxyaabaha oo soo qabto annagana shaqadeena weeytan marka aad u mahadsantiin arinta taas aan uga baxayaa King CK ayaa xalay wuxuu ka hadlay video oo YouTube-kiisa soo galiyay gabadha manaal ah iyo asaga maadaama mataqaanaa barihiisa bulshada dhan oo gabadha ka saaray hadday ahaa lahayd YouTube hadday ahaa lahayd ishaq maxaa la dhahaa social media intiisa kale meel kasta ay tahay waa uu ka saaray gabadhi Instagram-kii uu ka saaray wuxuu ka saaray meel kasta waa uu ka saaray marka arintaas waxaa kaliftay CK iyo gabadha tan waa kala tageen waxaana uga baxday CK lacaga qarash aad u badan baa guurkiisa iyo arooskiisa iyo mataqaana ku baxday si kasta aataba gabadhii asaga waa kala haajireen oo hal dalaaqa ayuu ku furay wararka saxda ah aanu ka helnay because qoys kasta marka ay kala tagaan ama nin kasta marka isfuraan waxyaabaha jira furiidkaas uu ku imaaday ama haddii ahayd dhanka gabadha ama haddii ahayd dhanka wiilka wararkii ugu dambeeyay video ka hore waxa ku daawateen inaan idin sheegnay in CK video laga soo diray asaga oo baashaalaya gabdha Eritrean iyo wax noocaas la jooga gabadha loo soo diray asxaabtiis u soo direen qaar kamida laakiin video kan waa ka duwan yahay programkii hore sababtoo ah waxaan helnay xogta saxda ah ayaan helnay guriga King CK waxa ku dhuntay lacag gaaraysa $15,000 intii uu ku maqnaa oo lacagihii labadan bil oo shaqeynaya YouTube-ka ah iyo lacag hore ayuu ta u qaatay u soo go'day lacag $15,000 oo euro ah baa ku dhuntay gurigiisa intii uu ku maqnaay ishaq maxaa la haleela balil oo jiray sida aan wararka ku helnay waxa la sheegay gabadha inay gabdha asxaaba oo magaalada CK degan yahay ee Austria ay la degan yihiin gabdhaha u umaada saaxiibadood asxaab yihiin ay saaxiibo yihiin ay isla soo koreen lacagtii alcamuum lacagtii oo CK guriga u taalay waa lagu yaacay
CK marka uu soo laabtay oo magaalada imaanayay ishaag maxaa la dhahaa waxaa la sheegay in mataqaanaa lacagta tan ay dhaceen gabdho kale laakiin asaga oo aan hubsan ayuu wuxuu sameeyey gabadhii ayuu wuxuu ku qabsaday lacagta aaway gabadhi waxay tiri maan qaan lacagtan mana aan ogeyn si kastee ahaataba wuxuu ku dooday oo gabadha ku qabsadaa lagu leeyahay in mataqaanaa qaladadka ay ayadu leedahay maadaama dadka guriga joogay ayadu ay keentay maadaama ayada ay keentay ayuu ku qabsaday sababta u keentay maxay tahay because dada keeni lahayn lacagta lama qaada lahayn sida aad fideogiisa ku daawanayseen xataa wuxuu gabadhii xaaskiisa ahayd oo jaceylkiisa ahaa bal damiir xumada wiilkaa fiirsha gabadhii ay nolosha isla soo qaateen oo xaaskiisa ahayd oo jaceylkiisa ahayd oo gabadhii qiimaha badneed ahayd xataa uu u quuri waaya xaaskayga wuxuu leeyahay gabadha tan maahan gabadh ii sheeg maxaa la dhahaa gabadh xishood badan bay ahayd gabadh saan bay ahayd gabadh saan xataa magaceedu awood waay manaal waxay ahayd gabadh asluub badan manaal waxay ahayd gabadh qurux badan manaal waxay ahayd gabadh sharaf badan xataa uu u quuri waaya gabadha tan meeshaas waxaa ka muuqatay oo faarka iyagu soo qabtay yasitaan mataqaanaa oo gabadha tan yasayay baa ka muuqatay caradiisuna gabadhii oo kala dullacay laakiin dadku ma fahmi karaan qosalka beenta ah oo saan ah ay arkaan fideogiisa haddaad si fiican u daawato waxaad ka dhex arki kartaa oo aad ka dareemaysaa in CK gabadha oo yasayay gabadhana oosan ku faraxsaneen burburkana oo dhankiisa ka yimid baad ka dareemi kartaan aniga horta aad baan uga xumahay wixii reerkaas qabsaday aniga waxaan jeclahay gabar kasta oo Soomaaliyeed sharafkeeda iyo cisigeeda iyo inay guri barwaaqa ku noolaato waxaan jeclahay gabar kasta oo Soomaaliyeed in ay mataqaanaa ii sheeg maxaa lahaa aysan nolosha ka burburin hadday ahaa lahayd qoyska hadday ahaa lahayd ii sheeg maxaa lahaa waxbarashada hadday ahaa lahayd shaqada gabar kasta oo Soomaaliyeed inay kor noqotaan jeclahay qiimaheeduna sareeyaan jeclahay si kastay ahaataba CK iyo manaal baa dalaaqa ku kala tegay wararku qaarna waxa ay sheegayaan in aysan ii sheeg maxaa la dhahaa aysan isku soo laaba doonin sababtoo ah waxyaabaha oo shuruudaha ka dhigaa waxay tahay kow lacagta inay meel ku sheegto lacagta guriga laga qaato maqan inuu meel kusoo sheegto markii dhexdhexaad la isku yimid labo wuxuu kaloo ka hadlay in afaarihiisa hadday ahaa lahayd balwadihiisa iyo wixiisa gabadha tan ay faraha ka qaado gabadha tan waxyaabo badan aysan ku ogeyn baa markii ay gurigooda yimaadeen bay aragtay marka waxyaabaha ninkan uu ku doodayo uu leeyahay haddii aan isku soo laabano qodobadaasaa muhiima aniga arrimaha idiin soo gudbinayo dad magaalada la degan oo asxaabtiisa ah ayaa sikashikan igu soo gudbiyo waxyaabaha la isku haysto si kastay ahaataba waxaan leenahay reerkaas Soomaaliyeed burburkooda waan ka xunnahay walaalkan CK-na waxa waaye ii sheeg maxaa lahaa haddii aadna maqlaysid waxaan meeshan kaaga dareynaa fariinaha inaad reerkaaga aad soo ceshato gurigaaguna sida uu kugu qurux badnaado aad mahadsantiin waa Royal Family ka tagay video ka aan kulmi doono sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum haddaad channelka ku cusubtahay subscribe ka iloobin si aad more barnaamijyo la socotiin aad u mahadsantiin